waxaa gegada kubadda cagta ee maamulka magaalada Dirdaba ka dhacay caleemasaarka ugaaska beesha gurgure ee kontoniya afraad ugaasiya Daawud Cumar cali barkhad ayaa baafinta warkaasi noo eegaya xafladan caleemasaarka ugaaska beesha gurgura ayaa waxaa ka soo qayb galay ugaasida garaadada iyo cuqaasha deegaanka Soomaalida iyo ismaamulka Dirdaba oo ay ugu horeeyaan ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim iyo garaad kulmiye garaad Maxamuud Dool dhinaca kale waxaa iyakuna munaasabadaasi caleemasaarka ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ugu horeeyaan madaxa xafiiska maamulka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Xuseen Aadan maayarka maamulka magaalada Dirdaba mudane Ibrahim Cusmaan iyadoo sidoo kalena ay caleemasaarkan ka soo qayb galeen bulshada kala socotay deegaanka Soomaalida ismaamulka Dirdaba iyo meelo kalaba munaasabadan ku caana shubka ugaaska beelweynta gurgure ugaasiya Daawud Cumar ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay madaxa xafiiska maamulka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Xuseen Aadan waxaana hadaladiisii kamid ahaa ugaaska kontoniya afraad ee beesha gurgure ugaasiya Daawud Cumar geele waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dawladda deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay xafladan quruxda badan leh lagu caleemasaarayo ugaaska waa xafladihii naadirka ahaa ee ka dhici jiray deegaankeena maantana waxay ka dhacaysaa magaaladeena Dirdaba ayay ka dhacaysaa waxaan leenahay ugaaska la caleemasaarayo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu noqdo ugaaskii nabadda wada noolaanshaha wada jirka midnimada Soomaalida iyo wada noolaanshaha qowmiyadaha kale ee walaalahanahay ee wada degannahay ee Itoobiya inuu noqdo ayaan ilaahay uga rajaynaynaa waxaan halkan salaan diiran ugu soo jeedinayaa marti sharafta qaaliga ee ka soo qayb galay munaasibadan caleemasaarka ugaaska kontoniya afraad ee beesha gurgure anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ismaamulka Dirdaba waxaan halkan hambaliyo iyo salaam ballaaran ugu soo jeedinayaa ugaasiya Daawud Cumar oo aan maanta caleemasaarkiisa halkan u joogno dhanka kale waxaa iyakuna hadallo dardaaran iyo duco isugu jira halkaasi ka jeediyey ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim garaad kulmiye Maxamuud Dool waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maanta ani farxad weyn bay tahay waayo gurgure waa garabkaygii waa beeshii aan dadka isugu dhaweyn Soomaali markii la yiraahdo waa beeshii aan isugu dhaweyn inay maanta ugaaska iyo ku caleemasaaranaya aan ka soo qayb galaan farxad weyn iyo sharaf bay maanta ay tahay waxaan rajaynayaa sidii aabayaasheen nooga tageen ugaas Xasan iyo ugaas Buux sidii ay wada shaqeyn ilaa una xariiste si ka fiican inaan wada shaqeyn doono insha Allah ayaan rajaynayaa ugaaska waxaan ugu duceynayaa kii nabadgelyada ka shaqeeyo midnimada ka shaqeeyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed iyo qowmiyadaha la nool midnimadooda walaalnimada ka shaqeyn Allah ka dhigo الله كدغو ugaasiyad Daawud waxaan leeyahay ugaas shaqo badan baa ku taala siday mas'uuliyiintii dawladdu ay ka hadleen ugaas waxa ku yaala inaad midayso beesha Soomaaliyeed oo dhan ugaas Soomaaliyeed baa tahay ugaas bariga Itoobiya oo dhan baa tahay waxa laga rabaa in aad dadka Soomaaliyeed midnimadiisa ka shaqeyso waa mas'uuliyad weyn ugaaska iyo beesha gurgurana waxaan leenahay dadkii Soomaaliya orama midayn lahaa inaad noqotaan idinkuna oo dadka walaalaha ay deegaanka wada degan nabadooda iyo midnimadooda aad ka shaqeysaan annagu haddaan odayaashinahay waa la shaqeynaynaa ugaaska waa soo dhaweynaynaa ugu dambeyntiina waxaa lagu soo gunaanaday khudbadda ugaaska beesha gurgure ku caana shubtay ugaasiya Daawud Cumar waxaan halkan ka ballan qaadayaa anigoo ah ugaaska beelweynta gurgure haddii alla idmo inaan dadkayga ku dhaqo cadaalad sinaan walaaltinimo waarta
waxaa kale oo aan ballan qaadayaa in dhammaan qoomiyadaha kale ee kala duwan ee aan dariska nahay aanan ku wada noolaan doono nabadgelyo sinaan iyo cadaalad. ugaaska beesha gurgure ayaa wuxuu noqonayaa ugaaskii 54aad ee beeshu yeelato taasoo caleemasaarkaasi uu u dhacay sidii dhaqanka iyo hidaha u ahayd soo xulashada cidda beesha hogaamin lahayd oo si weyn loo soo agaasimay.